بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ما أنت تاريخ waxay ku beegan tahay 27 bisha barakaysan ee Ramadaan sidoo kalena taariikhdu waxay ku beegan tahay 6 bisha Abriil 2024 waxaan ku sugannahay kaamkii alla degmada Kaxda oo maalmahan oo dhan aan soo gaarinay oo aan soo gaarsiinay afur aan ugu talagalnay dad aan haysan afurkii ay ku afuri lahaayeen ilaahay ha barakeeyo dadkii sadaqada la soo baxay maanta waxa si gaar ah afurka u soo baxsaday walaasheen khayr Allah siiye macalimat Zainab Xasan waxay ka mid tahay macallimiinta walalaha gargaarka agoonta khayr Allah siiye waa macallimad quraanka dadka barta ayadana barata ilaahay waxaan ka baryaynaa insha Allah dadka ugu khayrka badnaa ugu wanaagsanaa ayay ka soo jeedaa sababtoo nabiga kaleey salaatu wasalaam ahadiistiisa mid kamid ah wuxuu ahaa khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu dadka waxa ugu khayr badan dadka quraanka barta dadkana sii bara khayr Allah siiye Zainab dadkuna ayadana quraankuna way sii baratay quraankiina way baratay ayaduna dadkii sii bartay waxa waaye dadka ugu khayrka badnaa waaye dadkii nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa Zainab Xasan muraadkeeda inuu ilaahay u sahlo muraadkeeda macallimadaas khayr Allah siiyo inuu ilaahay u sahlo dadkaas afurka ay maanta u soo dhiibtay ayadoo dadka ugu barakeysna aha dadka ugu khayrka badnaa aha nabiga kaleey salaatu wasalaam dadkii uu noo sheegay kamid ah haddana waxay maanta soo baxsatay afur 200 oo qofood gaaraya ayay waxay soo dhiibatay inay maanta alxamdulillah khayr Allah siiyo 200 oo qoys inay maanta ka afuriso jeebkeeda ayay garatay waana maamo mar walba agoonta iyo dadka dhibaataysan garab istaagta ilaahay waxaan ka baryaynaa cimrigeeda inuu ilaahay u siyaadiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa awlaadeeda awlaad wanaagsan inuu ilaahay uga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa insha Allah dan walba iyo ujeed walba iyo wax walba ay rajaynayso oo ilaahay xaqiisa ku maqan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay u sakhiro ilaahay waxaan ka baryaynaa walaasheen maama Zainab Xasan muraadkeeda inuu u sahlo awlaadeeda awlaad baariya jannatul firdaws dadka ka waraabinayo ilaahay inuu ku daro adduun iyo aakhira cizi ku noolaaw ayaan ku leenahay walaasheen macallimad Zainab Xasanay waxa tahay dadka ugu khayrka badnaa ilaahay muraadkaaga ha ku sahlo ilaahay ramadaanka ha ka aqbalo ilaahay dambigaaga ha dhaafo ilaahay muraadkaaga ha ku sahlo adduunyada waxa jeceshaa Allah ku siiyo aakhiran jannada Allah kugu bishaareeyo ilaahay idinkiis dadka aad afurka u soo dhiibatana waa kuwaas khayr Allah ku siiyo waxaan rabnaa inaan ku tusno khayr Allah ku siiye walaalahay khayr Allah idin siiyo maanta waxa afurka soo dhiibtay gabar la yiraahdo macallimad Zainab Xasan oo macallimad dugsi quraan ah oo kalaamka ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka barta waxay tiri waxaan waaye dadka ugu khayrka badnaa ay ku soo jeedaa nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu sheegay oo wuxuu yiri dadka ugu khayrka badan waa dadka quraanka barta dadkana si bara macallimada khayr Allah siiye maadaama ay dadka ugu wanaagsanaa adduunka dadka ugu khayrka badnaa ay ku jirto haddana maanta waxay soo dhiibatay afurkiini waxay tiri si niyad oo qalbi wanaagsan ah igu soo duceeya afurkaasna aniga idin soo dhiibay waxaan rabaa muraadkeyga inuu ilaahay isaale muraadkeeda maxaa dhahdeen macallimad Zainab Xasan muraadkeeda Allah sahlo waxay jeceshaa oo jannada ugu horeysa Allah siiyo adduunyo iyo aakhira taama Allah siiyo macallimad dugsi quraan waaye kalaamka Allah dadkay bartaaya ilaahay muraadkeeda ha u sahlo quraanka ay barta Allah u fududeeyo dadka ayadana midka ay barata qalbigeeda Allah ku xifdisiyo qalbigeeda Allah ku nageeyo Zainab Xasan muraadkeeda maxaa dhahdeen muraadkeeda Allah u sahlo ducadiina Allah u aqbalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.